mahadsan tahay xaaladda horta waa okay alxamdulilah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada ATMIS iyo gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose mudane Ibraahim Aadan Cali Najax oo iskaashay maamulka gobolka iyo degmooyinka iyo deegaanada dhammaan runtii furmaha loo wada sugan yahay qaar bariir joogo iyo qaar awadeeg la kaabaha ku hayo qaar sabiibka howlgalo waayo hadda sabiibka gacanta ku hayo meeshii joogo runtii nimankaas cadawga ah dadka curyaamiyay dhibaato xoog leh ku hayo dalkan waxbadku wax kuma soo kordhiyaan inay dadka laayaan boodooyinka inay jiraan ceelaha biyoodka inay jiraan dhibaatadaas ayagoo dalka ku hayo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed runtii iyo gudoomiyaha gobolka ugu horeeyo dagaalka hogaamiyo gudoomiyaha gobolka Weelsi hadda 10 maalmood ka badan wuxuu ku sugan yahay furmaha annagana waa joognaa bariir iyo waxa kala joognaa iyo sabiib iyo si ku sheegay qaarna abadeeglay afka ku hayaan nimankaas sida loo cirib tir lahaaya loo taagan yahay dagaalna waa xeelad anagoo degmooyinka inoo muuqdaan guryahooda iyo manaaradaha masaajidka iyo anteenada anagoo hadda ishayna ay hayso laakiin magaalada ujeedada loo magale xeelad ay u baahan tahay nimankaasna waa niman nafla ceer ah beerihii waxay ku soo direen biyo motor ay soo saareen dadkii dalagii waxa laga yaabaa bil ama 20 maalmood wax ka yar dalagii ku soo go'o lahaa biyo ku soo fasaxeen ayagoo ciidanka xoogga dalka fiirahay ma fahan waa gartay iyadoo aan ka warhaynay dhibaatooyinkaasi in ay argagixisada shacabka ku hayso haddana howlgaladii u dambeeyay ee la sameeyay maxaa khasaara oo argagixisada loogu geystay runtii khasaara xoog leh loogu geystay markii la yiraahdo ceel saliina duleedkiisa oo kale ayagoo meesha ku aruursaayo ceelasha ama la foole inay soo weeraraan rabaan meesha lagu tagay amiir badan laga dilay ayagoo hataa hal xab ku shaasiina laga kordhigay meesha dhibaato xoog leh oo lama ilaabaan meel kasto ay ku sugayeen argagixisada ay la xanuunsadeen meesha ku gaartay mid kale nimanka waa kala carara anaga waxa rabnaa inay dagaalamaan niman cararaayo kaliyaasha biyo ka soo fasaxay beeraha biyo ku soo deeyay buundooyinka ay jireen ujeeda buundada bariir xalana habeen hor hal saac ay jireen niman inay istaagaan oo dagaalamaan rabo ma aha ninka markuu kula dagaalamaa khasaara la gaarsiin karaa niman kala cararaayo waayo marka anaga waxaa jeclaan lahayn inay istaagaan inay geedaha cimba ay BKM la fuulaan haddii ay ka soo degtaan ay suuro gali wayso waxoodana waa ujeednaa anaga geedaha cimbahana dada beertay muddo dheer sugaaye annaga ma rabno inaan geedaha jijibino ama dhibaato u geysino laakiin mar walba meel ay macnaa nafta ay bidda ayaga mana u suuro galayso marka niyo dhibaatadaas xoog leh waa iska jirtaa laakiin annaga meel kasta waxa laga degan yahay afarta koono waxa isku dayeena inay qof baxsana isku dayeena maadaama ay kala cararaan oo ciidanka xoog ay hor istaageen wadda in miina la geliyo meel biyo lagu fasaxo iskuulaadkii iyo buundooyinkii iyo xaramuhii dawladda inay ganjeeladooda miina ay ku xiraan ay kala dad waa ujeedaa inay cararaan ay u dayantaha waaye qofkan noocaas markuu yahay khasaara lama gaarsiin karo ma fahan howlgaladii u dambeeyay hadda aad samayseen maxaa u suura galay oo deegaana oo argixisada laga xoreeyay runtii nimankaas waa ogtahay in hadda meesha hore u soo sheegnay oo hadda sabiib oo kale in gacanta lagu haayo deegaanada kale bariisi abadeeg loo kale dadkii horta nimankii dhanka gandarsi dhulka waa kala qaybsan yahay wadadan dheer oo isku xirto afgooy iyo marka isku xirto markii la yiraahdo dhankan gandarsi wixii jiray horta meesha waa laga saaray waa ka baxeen qaar doon ay ku baxeen qaarna habeen ay meesha ka baxeen gadaal deexda ma jiraan dhankan dhowooda isku aqoonsadeen dhowoodan tan hadda anaga kor taaganahay waaye oo marba meel ay aadaan annaga waxaan rabnaa shacabka waxba ay gaarin iyo beeraleyda iyo shacabka iyo dadka safareyda oo gabaarada ku safro ayagoon wax dhibaato loo geysanin nimankan inaa goos oo kale loo siibo si tartiib loo bixiyaa rabnaa ayagan waaba kala cararaan oo hadda maba istaagayeen laakiin inaan la daba socdo ilaahay idinkiis oo meel bannaan oo qofba ay joogaan ama beera duur ah in lagu helaa rajahaynaa meel dar oo fiican oo macnaha lagu beegsan karaan annaga raadsaynaa laakiin mar walba shacabka ay dhexgalaan hadda shacabka ku dhex jiraan dugsiyaalka quraanka ay ka jiiftaan degmooyinka annaga waa ognahay meel kasta ay ku jiraan laakiin waxaan rabnaa inaan meesha ay ku jiraan oo kale dugsiyaalka ay u dhawaadaan maalinkii ardayda ay joogto habeenkii dugsiyaasha ay ku dhuumaaleystaan sidii loogu filanin waxaan rabnaa in sidii macnaha inaan fiidnaa rabnaa meel kasta ay galaan inaan fiid dadka waa gartay gudoomiye adoo mahadsan oo fursadan guud ee warbaahinta qarankana ka faa'iideysanaya oo shacabkii deegaanka iyo guud ahaanba shacabka Soomaaliyeedba la hadlaya maxaad fariin oo aad la wadaagaysaa dhanka kale deegaanadii hadda argixisada ciidamada xoogga iyo kuwa deegaanka iyo dhammaan iskaashanayaan laga xoreeyay
iyana hadda xaaladooda waa sidee maadaama aad sheegtay in meelo qaar ay argixisadu laga yaabo meelay ka baxayaan ama meelihii laga saaray in miinooyin iyo waxyaabo qaar ay ku aasaan si ciidanka ay uga feejignaadaan dhagarta marka qaar argixisada ay geysan karaan dadka shacabkana ay u maleegi karaan guud ahaan arrimahaasi adoo isku soo xoorinayay maxaad kusoo koobaysaa waxaan rabnaa shacabka inay ka fogaadaan intay dowladda ka xaqiijihayso markay dowladda qabato xarumaha iyo iskuulaadka macallimiinta iyo ardayda dhan waxaa u sheegaynaa markii saraakiisha ciidanka xoogga qalab casri ay wataan miinooyinka lagu baaro meel oo dowladda ay baara in la tegin shacabka waxaa ugu baaqeynaa meel kastoo cadowga laga xureeyey in ciidanka dowladda annagaa naftaa in ugu horeyno diyaarno ah shacabka hortoodana anaga dhibaata ina soo gaarta anaga raala ka ah ciidanka meesha markii ku horumaraan oy baaraan oy hagaajiyaan kadib inay shacabka tagaan meel cadowga laga xureeyey inay shacabka ku degdegin ilaa ciidanka dowladda iyo maamulka gobolka iyo ciidanka atmis oo garabkayna ah ilaa meesha ammaanka laga xaqiijahayo shacabka horta inay ka fogaadaan dhulka iyo wadooyinka suuqooy qudaarta ama meel walba waxay geliyeen miinooyin shacab iyo ciidan ma kala jecla marka shacabka waxa uu baaqa hortaas inay ku degdegin ciidanka dowladda saraakiisha gaar ahaan ayagana waa ogyihiin oo nimankan dhagartooda waa lala socdaa meel kastana shacabka waa laga ilaaliya waa laga baaraa taas ciidanka ama saraakiisha dardaara uma baahna laakiin shacabka waxaan leenahay meeshii cadowga uu ka baxay yaa lagu degdegin intee laga baaraayo waxyaabaha oo ummadda dhibaateeyo intee meesha laga saaraayo marka taas waa taas midda kale shacabka waxaan rabnaa inaan u sheegno nin wax kuu dhisay iyo nin wixii lagu dhisay kaa burburiyey isku mid ma aha shacabka inay istaagaan oy ummadda hore dadaa dhintay geeridana waxa waaye albaab laga gala waaye qof dhimasha ka baqaayeen ummadda ninka ugu aqli yar waaye geerida qofka waa ku xiriirtaa ninka markii lagu umaa geera lagu xiriiriyey dhimashada qofka saacadoo ku baxaa shacabka inay istaagaan xogooda ay soo gudbiyaan meel kastoy galaan ay sheegaan shacabka taasaa ugu baaqa ayagana geesanima ay muujiyaan macnaha fuley janna ma galo waxaa leeyahay nimankan cadowga ah oo ilaahay oo dadku imtixaanay waqti ay leeyihiin waa bixi doonaan dhibaata badan laga soo gudbay waa laga sheekeeyi doonaa waagii shabaab ay joogtay waa la dhihi doonaa ilaahay idinkiisa yawmin al-ayaam intaas waxaa leeyahay la adkaysto dadkina ha isku duubnaadaan wax kale ma dhahay